ayadoo isbuucan xaalado kala duwan oo aada u adag ay soo wajahday ajaanibta dalka koonfur afrika ku nool karaan gobolka western cape khaasatan soomaalida oo isbuucani deegaana halisa lagu dilay qaarkood lagu dhacay qaarkood dukaamada ay xireen ayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxaa la sheegayaa inay ahaayeen kuwii ka dhacay deegaanka filibi oo ugu yaraan 2 muwaadin lagu dilay isbuucan gudihiisa labada muwaadin ee dukaankooda lagu dilay ayaa waxaa la sheegayaa in meeshaas gabi ahaanba ay tahay meel tuugadu ay kasoo darayso islamarkaana ay tahay tuuga iska daba imaaneysaba oo la leeyahayba iyagoo is og ayay haddana wax qaadanayaan laga yaabaa hal tuug keligiisba inuu iska soo dhigayo 2 tuug ilaa 3 tuug mar kale ayaa waxaa la sheegayaa inay deegaanadani kusoo bateen tuugo sheeganayso in ay lacag dheeraada rabaan haddana lacagda la siinay wax dilayaan waxaa la yaab leh oo muwaadiniintan la sheegaya inay u dhinteen inaanbaba lala hadlinba oo la iska dilaba si macnaha waxaan ku idhahdaa maxaa iga galay camal leh taasoo ay ku xaqiijisanayaan lacag oo ayaga ay rabaan in loo tago islamarkaana yidhaahdaan lacagdaasaan u dilnay dadkaas lacagdaasna la siiyo dabcan allah u naxariisto muwaadiniintii la dilay waa la aasay gacanka xaqdaran ayaa dishay wiilal dhalinyaro ah oo shaqaysanaya ay ahayn oo dalkan ku noolaa dabcan inkastoo xilliyada ay ku noolaayeen xilliyada ay soo galeen aan kala aqoon qaarkood xitaa waalidkood ayaa joogay xitaa waxaa ka mid ah sida la ii sheegay wiil walaalkiis asagana saanu kale 2 sano iyo 3 sano ka hor lagu dilay dalkan dabcan waa dareemi kartaa xanuunkay leedahay aabahooda weliba jooga wiilashaasi wiilkii kalena waa la dilay dabcan aabihiina waa joogaa wararka ugu dambeeya kale waxaa ka mid ah in muwaadin Soomaali isna la dhaawacay oo lagu dhaawacay deegaan kale oo xaafad isku raran ah kadib markii tuugay isxabadayeen sida wararku ay sheegayaan islamarkaana markii dambe laga tabaroonaaday sidaasna lagu dhaawacay wax kale lama sheegin inay dugaan ka dhaceen oo kaliya la sheegay waxay damacsanaayeen kulley waa wax la isweydiinaya ma deegaankan Philippia marka kusoo noqonaynaa dhacdooyinka ugu dambeeyay newska dalka koonfur afrika ama warbaahinada dalka koonfur afrika ay tibinayaan ayaa waxaa ah in xildhibaano macnaha heer governmental heer state macnaha xildhibaano ka tirsan xisbiga muxaafadka ee DA dabcan DA waa xisbi muxaafada dabcan mucaarad u isticmaali karno saami qayb si fiican weliba dalkan ka haysta wasiirro kule dowladdan isbahaysiga ama xulufaysiga ku jirto mar ahaan jiray xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalka koonfur afrika haddana ah xisbiyada ugu waaweyn dalka ee weliba dowladda ku jira muxaafadka ayaa xildhibaano kuwiisa 3 gaar ay dhaawacyo fudud ay kusoo gaareen deegaanka Philippines maalintii shalay 4 ka hor dabcan waxaa la sheegayaa in ay dad baabuurka loo soo jebiyey oo dhaawacyo la gaarsiiyey wax la yaab leh ay noqotay oo xildhibaano weliba gobolkay ka soo jeedeen macnaha